madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa dafiray xogo aad u xulaya baraha bulshada oo sheegaya in muran faaq ah oo ay jamaahiirtu daawatay uu dhaxmaray isaga iyo xaaskiisa isaga ka weyn ee Brigitte muuqaal ay waliba si weyn u fataatiyaan una sii faafiyeen warbaahinta dawladda Ruushka iyo midda kooxaha midigta fog ee isla dalkaasi Faransiiska kaasoo muujinaya xaaskiisa oo hantaa tureynaysa kadib markii ay wajiga si xoogan uga riixday xilli uu isu diyaarinayay inuu diyuuradiisa ka dego si uu bilaabo booqashadiisa rasmiga ahayd ee ku tagay dalka Vietnam. muuqaalkan aadka u faafay oo ay duubtay wakaaladda wararka dalkaasi Mareykanka ee Associated Press ayaa aad u hareeyay booqashada uu madaxweyne Macron ku tagay wadankaasi Vietnam oo runtii lagu tilmaami karay mid sida kale guuleysatay. waayo Faransiiska iyo Vietnam ayaa isniintii kala saxday dhowr heshiis oo ku jiro mid ay ku doonayso ilaa 20 diyaaradood oo ah nooca Airbus oo ku kacaya 9 bilyan oo euro kadib markii uu Macron noqday madaxweyne ugu horeeyay ee Faransiis ah ee booqasho rasmi ah ku taga dalkaas ay hore u gumaysan jireen muddo 10 sanadood ku dhow. waxa kale oo heshiisada ay labada dal kala saxdaan ku jira iskaashi ku aadan tamarta nukliyeerka, difaaca, tareenada, gaadiidka badda, dayax gacmeedyada, dawooyinka iyo talaalka. Macron ayaa sidoo kale intii uu halka joogay waxa uu ka qayb galay munaasabad ubax lagu dhigayay qabriyada qaranka ee ku yaala magaalada Hanoi ee loo yaqaano Ho Chi Minh Mausoleum. yalkeedu waxa uu idil waxa isku fuuqsatay dhacdadan bilowgii laga arkayo gacanta riixaysa wajiga madaxweynaha Faransiiska walow aan qofka la arkaynina waxa la garan karaa booska ay taagnayd iyo balowska casaanka ah ee ay xaaskiisu xirnayd. balse waxa dhacdadan ay ku lugta leedahay xaaska Brigitte Macron aad u qaadqaaday warbaahinta dalkaasi Russianka oo arrintan ka faa'iideysatay. tusaale ahaan Maria Zakharova oo ah afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi Ruushka ayaa Telegramka ku soo qortay sidatan: xaaska koowaad ma waxay go'aansatay inay ninkeeda ku dhiiri geliso jag yar oo daanka ah markaasay xooggeeda yaraysatay. hadalkan qanjiiriska ah ee su'aasha u qaabka eg ayaa waxa ku qarsan dood kale oo ku saabsan naagnimada Brigitte Macron. waayo dad ay kamid yihiin Candace Owens oo haddaba soo duubtay muuqaal 40 daqiiqadood ah oo ay mikrofoonka ugu qaadanayso marwada Brigitte Macron ayaa waxay ku eedeeyaan Brigitte Macron in aanay runtii naag ahayna ay tahay dadka jinsigooda bedelay walow aanay keenin wax caddayn ah. waxay qoraalka sii raacisay Zakharova waxay doonaysay inay kuleetiga u saxdo kadibna waxay ku dambeysay inay gaarto wajiga la jeclow. markay halka sheekadu joogto waxa arrintii sii qaadqaaday warbaahinta rasmiga ah ee Ruushka sida Russia Today TV iyo kuwa kale ee baraha bulshada oo si ka badbadis ah ugu celcelinayay muuqaalkan. yalkeeda Macron ayaa isku dayay inuu arrintan warfidyaanka ugu sharaxo isla magaalada Hanoi. waxaanu sheegay in isaga iyo xaaskiisu ay kaftamayeen sida badiyaa dhacda. sidoo kale sarkaal ka hadlay madaxtooyada Faransiiska ee loo yaqaano Palais de l'Élysée ama Élysée Palace ayaa isna warbaahinta Faransiiska u sheegay in arrintaasi ay muujinaysay dhawaanshiyo balse taasi ma hakin dooda ay wadeen kooxaha aaminsan aragti dhagareedka. ila kale oo ku dhow madaxtooyada Faransiiska ee Élysée Palace ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in lamaanahani ay doonayeen inay cadaadiska iska qaadaan ka hor inta aanay bilaabmin booqashada rasmiga ahayn. Macron oo jecel yahay inuu la kaftamo xaaskiisa ka hor waqcadaha rasmiga ah hadiya goorna sidan oo kale ayay ugu jawaabtaa tanise xitaa dharbaaxo ma ahayn ayuu yiri sarkaalkaasi. tii ay qolyaha sadarada dhexdooda aqriya ay warka ninkan ku tibaaxeen sida isagoo leh markan lamaba dharbaaxin lamana oga inuu hadalkiisa ku qarinayo in ay horay u dharbaaxi jirtay. balse waxaa jirta arrin kale oo aan ilaa imika la sharaxin waana haddii ay xitaa kaftan ahayd wixii ay sameeyeen intii ay diyaaradda korkeeda joogeen waxaa la isweydiinayaa sababta ay gacantiisa u diiday markii ay jaranjarta ka degayeen. Macron ayaa sidoo kale muuqaalo kale oo uu soo duubay waxa uu ku sheegay in marar badan oo hore qarad sidan oo kale ah laga faafiyay sida uu yiri. marba waxay u haysteen inaan wax ka wadaagayay boorso cocaine ah inaan isriixriixnay madaxweynaha Turkiga iyo hadda oo ay leeyihiin waxa uu muran guri kala dhaxeeya xaaskayga midkoodna run ma aha. qof kasta waxa uu baahan yahay inuu istajiyo ayuu yiri Macron ayaan hadalkan ku tixraacaya mid ay hore u faafiyaan isla Zakharova iyo nin kale oo kamid ah dadka ugu waaweyn ragga faafiya aragti dhagareedka ee dalkaas Mareykanka oo loo yaqaano Alex Jones kaasoo sheegay in Macron ra'iisul wasaaraha Jarmanka ee Friedrich Merz dhigiisa dalka Ingiriiska Keir Starmer iyo rag kale ay tareen daroogada cocaine-ta ku isticmaalayeen mar ay u safrayeen magaalada Kiev ee caasimadda Ukraine. Macron ayaa sidoo kale warbaahinta Hanoi ugu sheegay in imika caadi noqotay in Ruushka iyo kooxaha midigta fog ee dalka Faransiisku ay isu bahaystaan inay faafiyaan waxyaabo isaga dharka ka wasaqaynaya. isagoo yiri waa isaga sharaxeen in diblomaasiyadeedu ay tahay mid ka timid say la garaacay ayuu yiri Macron. Maxamed Xaaji, Hadalsame TV.